السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caruuray sheeko cusub ayaan baranaynaa maanta. sheekadan waxaa lagu magacaabaa dhaqamada xunxun ee loo baahan yahay in la iska ilaaliyo. marka waa sheeko ku saabsan wiil dhaqan xumaa. sidan ay ku bilaabanaysaa. mar ayaa waxaa jiri jiray nin taajir ah oo la noolaa wiilkiisa yar oo 10 jir ah. ninkii taajirka ahaa aad ay u jeclaa wiilkiisa, laakiin wuxuu aad u nacbaa dhaqamo xun oo wiilkiisa uu lahaa. ninka ayaa aad u murgay oo ka baqay in dhaqamadaas xun oo wiilka uu leeyahay ay haleeyaan. markaas wuxuu u tagay nin xikmad badnaa oo magaaladii uu deganaan jiray kula noolaa. ninkii taajirka ayaa wuxuu ku yiri ninka xikmad badnaa, wiilkay waa wiil fiican, laakiin wuxuu yeeshay dhaqamo xunxun kaasoo laga kari la'yahay inuu iska dhaafo. aad iyo aad ugu murgaya inuu mustaqbalkiisa uu baaba'o dhaqamadaas xunxun ay haleeyaan ee iyo caabi. ninkii xikmad badnaa ayaa wuxuu ku yiri, haddii saas tahay wiilkaaga aniga ii keen berito subaxdii. maalintii ku xigtay ayaa ninkii wuxuu u keenay wiilkii ninka xikmada badnaa. ninkii xikmada badnaa ayaa wuxuu ku yiri, nakeen, waxaan aadaynaa socod oo waxaan aadaynaa meel bannaanka magaalada ah. wiilkii ayaa warkiisa maqlay ninkii xikmada badnaa. markaas waxay socod u aadeen bannaanka oo magaalada. siday u socdeen ayaa waxay imaadeen geed yar oo dhuuban oo dhulka ka soo baxay. ninkii xikmada badnaa ayaa wuxuu ku yiri, wiilkaygiyow, geedkaas yar u jeedaa oo meesha yar ka soo baxay ii soo siib. wiilkii ayaa si fudud ku soo siibay, kadibna wuxuu u dhiibay ninkii xikmada badnaa. ninkii xikmada badnaa ayaa ku yiri, wax fiican ayaad samaysay. ma u jeedaa geedkaas yar oo dhankaas kale ku yaala? haa. wiilkii ayaa wuxuu ku yiri, kaasna ii soo siib. wiilkii ayaa orday oo mar labaad soo siibay geedkii yara oo loo diray. ninkii xikmada badnaa ayaa wuxuu ku yiri, nageen aan sii socone. markii xooga ay soo socdeen ayaa wiilka wuxuu ku yiri, geedkaas kale oo meeshaas ku yaala ma u jeedaa? haa. waa geed wuxuu ahaa waxyar ka weyn kuwii uu soo siibay. markaas wuxuu ku yiri, kaasna ii soo siib. wiilkii ayaa orday, laakiin waxay ku qaadatay xoogaa inuu xoog badan ku bixiyo iyo awood badan inay kaga baxda inuu soo siibo, laakiin way u suura gashay markii dambe inuu soo siibo. ninkii xikmad badnaa ayaa wuxuu ku yiri, wax fiican ayaa samaysay. markaan waxaan rabaa geedkii ugu dambe inaad ii soo goyso. geedkaas weyn oo dhankaas ku yaala ma u jeedaa? ii soo siib. geedkaas ayaan u baahanahay in aan qaato ee ii soo siib. wiilkii ayaa orday oo isku dayay inuu soo siibo, laakiin si kastoo isku day inuu soo siibo suurtageli weysay. geedkii ayaa la dhaqaajin waayey. wiilkii ayaa markii dambe wuxuu bilaabay inuu meesha iskaga soo tago asagoo ka quustay inuu geedka soo siibo. wiilkii ayaa wuxuu ku yiri ninkii xikmada badnaa, aad ayaan uga xumahay ninkii xikmada badnaayow, geedkaas geed aan siibi kara ma aha. waa geed aad u weyn oo da' ah, aad u xoog badan. ninkii xikmada badnaa ayaa ugu jawaabay, dhaqamada xunxun waxay la mid yihiin geedihii yaryara ee sida fudud aad ku soo siibtay iyo geedkaas weyn oo dhaqaajin weysay oo kale. markii waxa ay cusub yihiin oo ay yaryar yihiin, waxaa aad u fudud in si dhib yar layskaga joojiyo oona looga tago. laakiin haddii aad waxa marka hore joojin weyso oo aad sii dayso oo ay weynaadaan oo koraan, waxay noqonayaan wax aad u adag sidii loo joojin lahaa. sida geedkaas weyn oo xooga badan oo da'da ah oo kale. haddii dhaqamada xunxun oo aad leedahay marka hore aad joojin weyso, marka dambe waxay noqonaysaa wax aan laga takhalusi karin oo qofka noloshiisa hor istaagaya inuu guul ka gaaro. marka sida geedka aad u dhaqaajin weysay ayaa waxay noqonaysaa inaad macnaa iskaga joojin weyso dhaqamadaas xunxun ay leedahay. wiilkii ayaa ku yiri, iga raali noqo ninkii xikmada badnaayow, hadda ayaan gartay waxa aabahayga uu isku dayay inuu ii sheego iga waaninayay. maanta laga bilaabo dhaqamada xunxun iyo caadooyinka xunxun oo aan leeyahay waa joojin doonaa. marka tan waxay tilmaamaysaa caruuray muhiimadda ay leedahay dhaqamada xunxun in marka hore oo qofka uu bilaabo inuu joojiyo. misaal ahaan, haddii qofka caajisnimo uu barto, marka hore way fududtahay in caajisnimadaas uu iska dhaafo oo uu ordo oo uu wax barto oo wax uu akhristo oo dadaal badan uu bixiyo. laakiin haddii shaqada uu ka dhigto in uu maanta oo dhan hurdo, ama maanta oo dhan uu telefoonkiisa isticmaalo, ama in uusan cadaysan oo markii musqusha uu gal uusan cadaysan, ama weyseqaad fiican uusan soo samaynin, ama markii raashin uu cunayo in oo afkiisa uusan buuxinin oo dhaqamadaas xundhan haddii uusan barnin, aad ay u fudud tahay marka hore in la iska joojiyo. laakiin qofka uu caada ka dhigto inuu afkiisa u buraashanin ama u cadaysanin,
haddii caada uu ka dhigto inuusan si fiican u soo weyse qaadanin, hadduu caada ka dhigto maalintii oo dhan 6 saac 7 saac 8 saac inuu telefoonkiisa ku ciyaaro ama telefishin uu fiirsado, marka dambe aad ay u adag tahay inuu qofka iska joojiyo. taas waxay noqonaysaa marka in noloshiisa ama waqtigiisa ama juhdigiisa dhan ay lumiyaan, taasoo ka hor istaagaysa in mustaqbal fiican uu yeesho oo adduunyo uu qabsado, taasoo u keeni karta marka in oo noloshiisa dhan ay fasaado. caruurey, sheekadan halkan ay noogu eg tahay. ilaa mar dambe aan ku kulmi doono, waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.